وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وين ولا ليال سوماليا waxaa jira dad cadow ah oo rabin inuu ka dhaco isbedel dad cadow ah oo waxaa jira rabin inuu ka dhaco deganaan waxaa jira dad cadow ah oo diidan inay dawladda Soomaaliya labada mijood isku taagto waxaa jira dad cadow ah oo dawladnimada Soomaalida ku cadow ah su'aashu waxa weeyaan amba diid amba doon wa ayo cadowgaasi iyo kuwa Soomaaliya cadow maanta waxaan inii sheegayaa daraatoole maqaal aan soo dhigo Carabi ku qornaa baan in yarnii Soomaaliyeynaya waxaa jira cadowga koobaad ee Soomaaliya waxa weeyaan dalka Sacuudiga dalka Sacuudigu Soomaaliya wuxuu doonayaa inay noqoto meel timir lagu qaybiyo sadaqad lagu qaybiyo ay dawladda ka dhalaan dalka Imaaraadku wuxuu rabaa inuu isticmaalo xoolihiisa siyaasadeed dalka Qatar wuxuu isticmaalaa dawlad hoose oo u qarsoon waxa weeyaan Djibouti waxay isticmaashaa dad ay u bixisay asxaabta Djibouti igaad waxay isticmaashaa ciidan iyo ujeedooyin gaar ah waxaas oo dhan Soomaaliya cadow bay ku yihiin mid la walaal ah Soomaaliya ma jiro Soomaaliya carabtu ma rabaan Soomaaliya geeska Afrika laga ma rabo cadowga koobaad ee Soomaalidu leedahay waa kuwa hadii aad garan weydiin siyaasiyiinta reer Soomaaliyeed ee wasaaradaha arrimaha dibadda mishaarada ka qaata Nairobi wasaaraddeeda arrimaha dibadda rag baa mishaar ka qaata Djibouti wasaaradda arrimaha dibadda iyo mukhaabaraadka Djibouti rag baa mishaar ka qaata wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia rag baa mishaar ka qaata wasaaradda arrimaha dibadda iyo mukhaabaraadka Suudaan ee burburtay dad baa mishaar ka qaadanayay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadano kale oo fara badan dad baa mishaar ka qaata dadka mishaar ka qaadanaya ee Soomaaliyeed waxay u shaqeeyaan cadowga Soomaaliya burburkeega kuwaasa ka shaqeeya qolada labaad ee Soomaaliya aan ogoleyn inay ka dhalato dawladii waxa weeye waa maal qabeenada jecel inay ku sii dhargaan ku sii lacagaystaan maqnaashaha dawladnimada Soomaalida walaalayaal ninka maal qabeenka ah waa loo baahan yahay dahabshiil maal qabeen weeyaan maartay barakaad odagiisa sameeyay xaajiga Djibouti degan waa mushtar weyn ragaas waxaan uga baahanahay inay ka qayb galaan dhismaha dawladnimada oo ay dawladdu noqoto wax aanan laga maarmi karin arinta labaad waa taa walaalayaal qolada saddexaad ee dawladnimada la dagaalanta waxa kamid ah walaalayaal waa shabaab xarakatu shabaab waa cadowga dawladda Soomaalida xarakatu shabaab rag ba abuuray waxay rabaan in aynan oran annaka abuurnay waa inay yiraahdeen ragga wadaadada ah hadday qudbiyiin yihiin iyo hadday i'tisaam yihiin iyo hadday qeyrkood ba yihiin inay dhahdaan annaka shabaab waa naaladii aan dhalay waa beedkii aan dhalay marka sidaa daraadeed waxaan rabnaa inaan kuwa fikir lagu la dagaalamo cadowga Soomaaliya waxa kamid ah jamciyada qurumaha ka dhaxayso oo rabta inay lacag u bixiso oo dawladda u dhalan war annaku hadaa doonaysiin reer Soomaaliya anu nin Soomaaliya ahay walaalkiin baan ahay sheekh baan ahay reer Djibouti baan ahay laakiin Soomaali baan ahay taladan siinay waxa weeyaan gacantiinay ku jirtaa dawladnimo ka xorooba Nairobi ka xorooba Addis Ababa ka xorooba Djibouti ka xorooba Khartoum walaal baan nahay Djibouti waxaas waa siyaasadda walaal male ka xorooba Khartoum ka xorooba maxaan ku dhahdaa hatta Turkiga ka xorooba ay dawlad noqda dad xora oo gacantooda ay ku jirto arintaas waxaan jeclaaday inaan dhahdo war cadowgeenu waa annaka isku cadowga annaka burburina Soomaaliya